wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani warbaahinta xulka wararka kusoo dhawaada warka qodobada aad ku daawan doontaan haddii allah wadmana waxaa ka mid noqonaya xalay waxaa magaalada muqdisho ee guud ahaanba gobolada dalka Soomaaliya lagu qabtay munaasabada 26 Juun askari ka tirsan ilaalada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xalay tacaddi iyo jirdil xoogan u geystay wariyaal ku sugnaa xarunta ay ka dhacaysay munaasabada magaalada Muqdisho madaxweyne Muuse Biixi oo war cusub ka soo saaray xaaladii degdeg ahayd ee gobolka Sanaag ahlu sunna wal jamaa oo shuruud adag hor dhigtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb dowladda dalka Kenya oo bilaabaysa qorshayaal dhabar jabin ku ah dowladda federaalka Soomaaliya qorshayaalkaasi maxay yihiin waan idin soo gudbinayaa qodobadaasi ayaa daawan doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 26 bisha 6 Juun 2019 saaxiibayaal u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka faahfaahsan saaxiibayaal haddii aad channelkan ku cusubtiin subscribe dhaha kambalka furta si ay idin soo gaaraan warar xasaasi ah oo ka hadlaya xaaladda Soomaaliya iyo tan dibadda aynu ku bilownay xalay waxaa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya lagu qabtay munaasabad lagu xusay 26 Juun 1960 ay ahayd markii Israaciil gobolada waqooyi iyo koonfur 59 sano kadib ayaa xalay waxaa magaalada Muqdisho looga dabaaldegay munaasabadaasi waxaana halka ay ka dhacaysay xalay ee magaalada Muqdisho ku sugnaa madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana kamid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Kanaqalka sare xildhibaano wasiiro gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Uthman injineer Irisow ciidamada xoogga dalka Bambeyda iyo fanaaniin qaran shacab fara badan ayaa xalay waxa ay tubnaayeen afaafka hore ee Vision Governo kuwaas oo doonaya xafladaas inay ka qayb galaan si yeeshay ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa ilaalada madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeynay inay gudaha u galaan 12 saqda xalay markii la gaaray waxaa magaalada Muqdisho gabi ahaanba laga dareemay dabaaldega munaasabadaasi waxaana la ridayay bololeer lagu laray risaas oo jugtooda si weyn looga dareemay xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya la gaaro sanad walba 26 Juun ayaa waxaa laga xusaa gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya sidaas si lamidana waxaa gobolada dalka sida magaalooyinka Baydhabo Kismaayo Dhuusamareeb Puntland deegaanadeeda iyo magaalada Jowhar ayaa xalay si weyn looga dabaaldegay 26 Juun geesta kale Soomaaliland xalay waa laga xusayay 26 Juun goobta xalay munaasabada ka dhacaysay magaalada Muqdisho ayaa waxaa si weyn loo adkeeyay amniga goobtaasi waxaana halkaasi la geeyay ciidamo aad u fara badan oo isugu jira dharcad iyo koofi gudud kuwaas oo si weyn u xaqiijinayay amniga goobta ka dhacaysay munaasabada wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa xalay waxay ahaayeen kuwa hakad aan la gelin oo way furnaayeen waxaana laga cabsi qabayba wadooyinkaasi in loo xirayo 26 Juun oo geedasi yeeshay qorshaasi waxaa laga bedelayo wadooyinku gabi ahaanba waa ay furnaayeen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa war ka soo saaray xaaladii degdeg ahayd ee gobolka Sool madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu horay xaalad degdeg ah ugu soo rogay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag kuwaas oo kala ahi Argabo Celafoyn iyo Garadag madaxweyne Muuse Biixi ayaa ka laabtay xaaladii degdeg ahayd oo xilligaasi uu ku soo rogay deegaanadaasi taasi oo waxaana uu sheegay in xiisada gobolkaasi la dejiyo oo haatanba ay ka jirto nabadgelyo aad u baahan hadalkan ka soo yaray madaxweynaha maamulka Soomaaliland waxa ku soo aadaya xilli kul hore madaxweynuhu xaalad degdeg ah ugu soo rogay qaybo kamid ah gobolkaasi Sanaag waana ay ka dhaqan galeen waxaana arintaasi keentay kadib markii lagu dilay saraakiil ka soo jeeda deegaanada maamulka Soomaaliland halkaasi waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan halka ay xalay ka dhacaysay munaasabada 26 Juun tacaddi jirdil xoogan loo geystay wariyaal
ka howlgalayay gudaha magaalada muqdisho waxaana tacadigaasi geystay askar ka tirsan ilaalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. xalay ayay ku beegnaday 26 juun waxaa saxaafadda madaxa bannaan lagu wargeliyay inaysan ka qaybgeli karin 26 juun marka laga soo tago telefishinna gaar ahi oo ay wataan wasiiro kamid ah guddiga qabanqaabada munaasabadda. waxaa shaashaduhu ay soo qabanayeen xalay wariyaal ka tirsan warbaahinta maxalliga ee ka howlgasha magaalada muqdisho oo ay tacadi jirdil xoogan u geysanayaan ilaalada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. askartan kulli bisna diriiska ciidamada xooga dalka gaar ahaan kuwa ilaalada madaxtooyada ee koofguuda la yiraahdo ayaa waxay jirdilayeen wariyaashaasi. wariyaasha ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxay tacadi xoogan kala kulmaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo ay wataan mas-uuliyiinta kala duwan ee madaxda ugu sareysa dalka, waxaana wariyaasha ay ku handadaan qoryaha ay u adeegayaan shacabka soomaaliyeed. wariyaashan la jirdilayay ayaa waxa ay doonayeen inay gudaha u galaan halka ay ka socotay munaasabadda iyagoo maraya nidaamka halkaasi loo marayo, waxayna wateen kaararka xarumaha ay u shaqeynayaan. hase yeeshee askarta ilaalada madaxweyne farmaajo warkaasi way diideen waxayna kula dhaqaaqeen haraati, filatoor iyo jirdil kale. xukuumadan ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre oo la yiraahdo nabad iyo nolol ayaa waxay tacadiye xoogan kula kacdaa wariyaasha ku sugan gudaha magaalada muqdisho, waxaana eedeymo dusha laga tuuraa madaxdaasi ilaa ay haddana dhegjaraq uma siiyaan. waxay sii laba jibaarayaan askarta ilaalada u ahay madaxdaasi tacadiga foosha xun oo loo geysanayo wariyaasha ku sugan gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya. odayaal beeleed ayuu waxau ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kulan xalay kula qaatay magaalada dhuusamareeb. kulankaasina waxaa lagu soo bandhigay qorshe qasoodi ahi. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xalay magaalada dhuusamareeb kulan kula qaatay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada galmudug ay ka kooban tahay. odayaasha dhaqanka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka wada hadlay doorka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ay ku leeyihiin arrinta dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug. waxgaradka iyo odayaashan ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre uu bandhigay aragtida ku aadan hanaanka u habboon ee loo sameyn karo dib u heshiisiinta loogana hirgeli karo galmudug midaysan laguna wada qanacsan yahay oo ka shaqeysa danaha iyo mustaqbalka reer galmudug. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo tilmaamay in waxgaradku ay saldhig u yihiin dhismaha dowladnimada iyo wadajirka bulshada ayaa odayaasha u sheegay isaga oo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ay ka go-an tahay in reer galmudugba ay ku caawiyaan qabsoomida doorashada xor iyo xalaal ahi oo ka dhacda deegaanada dowlad goboleedka galmudug sida uu sheegay ra-iisul wasaare kheyre wayaane. kulankan oo qeyb ka ahaa shirka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre uu la qaadanayo bulshada dhuusamareeb ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye qarafaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka galmudug. maxkamadda ICJ ayaa waxay war ka soo saartay kiiska badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya. maxkamadda caalamiga ahi ayaa qoraal ay soo saartay shaaca uga qaaday goorta sida rasmiga ahi loo dhageysan doono dooda dacwadda ee u dhexeysa labada dal ee soomaaliya iyo kenya, waana dacwadda badde. qoraalkan kasoo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhageysiga dacwadani ay dhici doonto 9 ilaa 13 bisha September ee sanadkani. dhageysiga ayaa ka kooban 2 wareeg. wareega koowaad ayaa la qaban doonaa 9 ilaa 11 September halka wareega labaadna la qaban doono marka ay ku beegan tahay 9 bisha oo ku beegan tahay Isniinta, waxaana dood lah Soomaaliya halka 11 oo Arbaco ahi ay leedahay Kenya. wareega labaad ee dhageysiga dacwadda ayaa dhici doonta 12 oo ay ku beegan tahay Khamiis, waxaa hadli doonta Soomaaliya halka 13 oo Jimcahana ay hadli doonto Kenya. dacwadan u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa in dhawaanaanba soo jiitamaysa, waxaana dowladda federaalk Soomaaliya rajo weyn ay ka muujinaysaa in badda lagu marasan yahay la siin doono Soomaaliya maadaama baddaasi ay xaq u leedahay dalka Soomaaliya oo Kenya xoog ay ku muuqanin rabto. Kenya oo bilaabaysa qorshe kale oo dhabarjabin ku ah dowladda federaalk Soomaaliya. xiriirka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanayay, kaasi oo sababay in dowladda Kenya ay horay ugu dhawaaqday
inay xirtay xuduudii Soomaaliya isla markaana ay joojisay gebi ahaanba ganacsigii kaga iman jiray Soomaaliya. Xiriirkan xumaaday ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa uu sababay in shirkadda duulimaadka ee Kenya Airlines ay waqti xaadirkanba ay tixgelin gaar ah siiso sidii ay duulimaad cusub ugu tagi lahayd magaalada Hargeysa, taasi oo qorsheynayso inay noqoto hadafkeeda xiga ee Geeska Afrika. Tallaabadan ay dowladda Kenya qaadayso ayaa waxa ay sare u qaadaysaa xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya dowladda aan weli la aqoonsan ee Somaliland. Kenya Airways ayaa muddo ku jirta xog ururin buuxda oo ay ka sameynayso Hargeysa oo ay hadda dhamaystirtay, taasi oo markii dambe uu baarlamaanku qalinka ugu duugay inay duulimaad ku tagi karto gudaha magaalada Hargeysa, balse ilaa hadda weli ma aysan suurtagelin. Kenyaan ee ku nool gudaha Somaliland ayaa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 15,000 oo qof, kuwaasi oo ka shaqeeya deegaanada maamulka Somaliland gaar ahaan dhinaca warshadaha. Agaasimaha maamulka duulimaadka iyo madaarada Somaliland Cabdi Maxamed Rodal ayaa dhawaan waxa uu booqasho ku tagay caasimada Kenya ee Nairobi si uu wada hadallo ula yeesho mas'uuliyiinta ugu sareysa Kenya, midaasi oo ay ku saabsanaaday in Hargeysa ay ku habboon tahay in duulimaadka ay ku tagto diyaaradda Kenya Airways. gudahaan warka ka daawaneyseen warbaahinta xulka wararka saaxiibayaal, waa nageynta channelkan subscribe dhaha oo kambalka furta si ay idiin soo gaaraan warar iyo warbixin xasaasi ah.